daawadayaal waxaad muuqaalkan ku daawan doontaan waxtarka badan ee leedahay timirta. waxaa la dhihi karaa timirtu waxay daawo u tahay wax kastoo u baahan yahay aadanaha, waana cuntadii rasuulkeena Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee ugu jecelaay cuntooyinka. sida aan wada ogsoonahay daawadayaal, waxaa jira muslimiin aad u fara badan oo ku kala nool adduunka daafihiisa, waxayna cunaan timirta markii la gaaro bisha barakeysan ee Ramadaan. haddaba su-aasha isweydiinta mudane waxay tahay, maxaa isku soo beegay cunista timirta iyo bisha barakeysan? tijaabo iyo cilmi baaris lagu sameeyey timirta waxaa lagu ogaaday in timirta laga helo faa'iido iyo waxtar dheef badan oo aan halkan lagu soo koobi karin. waxaa intaas sii dheer, timirtu waxay daawo u tahay timaha daata iyo indho daalka iyo cirid dhiigga. sidoo kale waxay u wanaagsan tahay dadka jiimka aada ama jimicsiga sameeya, waayo timirta waxaa laga helaa energy badan. timirta waxaa kale oo ku jira laba maado oo kale ah calcium iyo phosphorus iyo vitamin A. waxaa kaloo timirta laga helaa vitamin B2 taasoo daawo u ah dheefshiidka, digestive systemka iyo wareegga dhiigga. waxaa intaas sii dheer, timirtu waxay daawo u tahay timaha daata iyo indho daalka iyo cirid dhiigga, kuwaas oo ka dhashtaan vitamin C la'aanta iyo weliba xiiqda ama daalka faraha badan. timirtu waxay jirka ka difaacdaa ama ka dhowrtaa sunta, waayo timirta waxaa laga helaa 3 maado oo caafimaadka u roon, kuwaasoo kale ah sodium iyo potassium iyo weliba vitamin C. timirta waxaa ku jira 3 maado oo kale ah iron iyo copper iyo vitamin B, kuwaasina waxay door weyn ka ciyaaraan. haddii aan dhahno waxtarka timirta, waxaa kusoo koobaynaa hal mawduuc ama hal barnaamij ma kusoo koobi karno, oo waayo timirta waa geed aad u faa'iido badan, wax laga taga ma walahan baasiga dhan waa wada faa'iido. timirta waxay ka baxdaa wadamada Masar, Qatar iyo Sacuudi Carabiya iyo dhammaan wadamada la isku yiraahdo jasiiratul carab. timirta waxaa ku jira fitamiino aad u badan. waagi hore dadkii ku noolaa jasiiratul carab waxay cuni jireen allahay timirta iyo caanaha bas, baad ka dhigi jireen, baad iyo caano, yacni timirta u ahayd raashin. marka timirta baaritaan la sameeyey waxaa la ogaaday in ay dhisto lafaha, khaasatan calciumka. waxaa la ogaaday inay dhisto lafaha, u wanaagsan tahay dadka yaryar iyo dadka waaweynba. waxaa ka mid ah maadooyinka ku jiro calcium. sidaa wada ognahay wuxuu dhisaa lafaha. waxaa kaloo muhiimadda ay sii leedahay waxa weeye hurdo fiican ayaa hurdaysaa, fahamka maskaxdana aad ayuu kugu wanaagsanaanayaa. caruurta yaryartan way u wanaagsan tahay, subaxda markay dugsiga aadayaan haddii 2 xabo ee hore usii cunaan, maasha allah aad u caawinaysaa. sidoo kale dadka cuna timirta ma lahan wax calool istaaga. caloosha markuu istaagayso haddii aad tahay qof timirta cuno, waayo way socodsiinaysaa calooshaada. haddii aad timirta tahay qof ku dadaala, maxay ahayn calool xanuun iyo calool fadhi mis arkaysaan adiga iyo calool fadhi. teeda kale timirtu waxaa ku jirta faa'iidooyin aad u fara badan daawadayaal, hal muuqaal oo keliya ma kusoo koobi karno. laakiin timirta waxaa ku jira 3 maado oo kale ah iron iyo copper iyo vitamin B, kuwaasina waxay daawo u yihiin anemiyada ama dhiig yaraanta, waxaa lagu yiraahdo afka qalaad anemia. timirtu waxay baajisaa oo ay ka hortagtaa cudurka kansarka oo ku dhaca mindhicirka. waxay kale timirtu ka hortagtaa cudurka wadna xanuunka, isla markaana waxay yareysaa in xamiitiga dhagaxyo ku samaysmaan. sidoo kale waxay fududeysaa marxaladaha uureysiga, ama ay ka caawisaa in haweeneydu uur yeelato iyo markii la gaaro xilliga dhalitaanka. sidoo kale waxay u wanaagsan tahay lafaha, kalbaxa, iskalka, meelaha iska kalgalaan lafayaasha. kalbaxa way u wanaagsan tahay, ayadana fududeynaysaa dhabar xanuunka, lafa xanuunka, jilba xanuunka, meel walba way u wanaagsan tahay.
haddii aad tahay qof jim aada ama rabo inuu murqaha dhisto xoog ayay kaga caawinaysaa. sidoo kale waxaa ku jirto maadada fitamiin ega kale ku jiro asigana u wanaagsan aragga, oo waxay aada ugu sii caawisaa dadka aanan habeenkii si fiican waxba u arki karin. haddii ay badsadaan timirta waxaa la sheegayaa takhaatiirta waxay sheegayaan in maxay ahayto aragtida qofka uu soo noqonayo. marka ku dadaal haddii araggaada hooseeyo. sidoo kale waxay u wanaagsan tahay haweeneyda markay uurka leedahay iyo xilliga markay dhalayso iyo markay dhasho kabacdiba. oo timirta waato allah subxaanahu watacaala oo ku yiri wahuzii ilayki bijidci naqlati tasaaqad calayki rudaban janiya, oo micnaheedu yahay geedka timirta jiridiisa hoose ka qabo ee gilgil si ay dushaada ugu soo daadato timirta. intaas kadib maxaa dhacay? fakulii washrabii, cun oo cab. haddaba daawade waad aragtay faa'iidooyinka ay leedahay timirta. ma tahay qof ku quraacda subax kasta? ma taala gurigaada? carruurtaada timir ay cunaan goorma ayaa ugu dambeysay? waxaa kaa codsanayaa su-aalahan jawaabahooda. haddii ay haysid fadlan inaad qaybta hoose ee commentiga aad nagu reebtid. mahadsanid.